هي تري قمر ما عرفايو قاس ما هرو ديدو قمر لو ما خاطر قال سويش وميد كميدا مرتدي الله ونحرسته مكاي قرار علي waxay ahayd wadiniyad abwaanad aan baxday xilligii gumaysiga aadna ugu dhiidhigi jirtay hagardamadii gumaysiga waxayna ahayd islaan guubaabada iyo kicinta shacabka si suugaan ku dheehan u soo bandhigi jirtay mana ay ahayn mid cabsata oo la baqda waxay aaminsan tahay waxay ka mid ahayd dadkii lafdhabartu ahaa halgankii xisbigii SYL qaybta hoga tusaaleynta iyo tilmaamaha uu cadowgu leeyahay iyadoo adeegsanaysa hibada iyo maskaxda uu eebba ku manaystay dhinaca maansada Makay Garaare waxa ay ku dhalatay tuulo lagu magacaabo Moyko oo ay ka soo jeeday waxayna ahayd islaan u abtirsata jiinka gaar ahaan shiidlo dadkii nasiibka u yeeshay ee soo gaaray lana kulmay sheekana ay dhex martay waxaa ka mid ahaa Xuseen Sheekh Dali oo ku nool magaalada Jowhar Xuseen oo aan waraystay maraan booqasho ku tagay Jowhar ayaan weydiiyay xilligii uu arkay Makay Garaare xisbigii ay ka tirsanayd iyo waxa ay aaminsanayd Makay waa soo gaarnay waa aragnay anigoo maxay raawi waqtigii oo xornimada la qaatay kadib aan arkay magaceedii qaar wuxuu ahay iid goobaabin si calanka Soomaali oo lagu hantiyay ahayd laba xisbiya jirta xisbi la dhijir group Seyshiid oo lixdooda shiidle iyo xisbi la SYL Soomaali yudlay in la yiraahdo ajireen oo ashaamud ahayo cid walba ku jirta ciidaana ay galay ahayn ujeedka lama fahmin waxay ahayd lixda meeyda calanka aan nala siiyo iyo 7 meeyda ay ku murunsanayeen markaas waxay tir gaala waa guuray goortay ahaato anagoo governo ah garta goosa doonaytir xisbigii ka soo horjeedo buru Talyaaniga ay wuxuu yiri buru Talyaaniga gaala haday guurto gacamos la way governo SYL gacan loo galaa SYL no tali doontay marna waxa dhacday in dagaal uu ka dhacay magaalada Muqdisho dagaalkaasi waxa uu dhaxeeyay xisbigii SYL ee leegada iyo gumaystaha wana dhacdadii la magac baxday dhagaxtuur dagaalkaasi waxa Makay Garaare soo gaaray in dad badan oo ka tirsanaa xisbiga leegada la laayay bal sheekadaasi sidii ay u dhacday iyo murtidii ay ka tirsay zay hayno dhameystiro tama SYL yiri waxa lagu helay meel ila dhagaxtuurka arkayso meesha saar waa meel banaan eedo gaalkii soo maro oo baawur wata la tuuriyay jirmaan qof ma ah waa xusuus waay markaas aliir dhagaxtuur xamar sidarna lagu markaas ay tir ruuxiga waa nacay rabbi ee rasuul rasaastaan la sheegay lama soo rido ay tir Jowhar joogtaa markaas ali wixii SYL sheegto wala xiri nin la dhihi jiray Abdul Baakiri nin la dhihi jiray Abdullah Khamadir waa nool nin la dhihi jiray Cagay nin la jiray Katin Yaro waa badnaayeen waxay sameeyeen komisariga la dirin komisariga cadaan oo ay Abdul Baakir liraa in dhabta dhulka la galay markaas bistoolo lagu tuuro iska deey waxa li Abdul Baakir waa xiri markaas ay saldhiga intimaad ay tiri argaalka waa gaarteen waa gawaantiseen gol xub ma haysan oo ku gowracdinay tir toori tir markii muddo joog wala soo deey markaas ay tiri galka mooyka gaarkiisa gota leega faago gaalkii gudow diida lagu gowracay tir abartaas waxay ahayd abar halgamo oo si xornimo lagu qaato aad u jeclaa jirta wadani ahayd dhalinyaradii leegada meel kasta oo ay joogaan uma kala socnayn qabiil waxay ahaayeen dad isku fikir ah ujeedkooduna wuxuu ahaa in la helo gobonnimo Makay waxa loo soo wariyay in dad badan oo ka tirsanaa xisbiga leegada xabsiga la dhigay oo lagu soo ururiyay iyo mar ay tagtay magaalada Beledweyne oo xisbigii leegada halkaasi ku lahaa shir ama banaanbax ay iyadii ka shakiyeen bal qofkan soo galay waxa uu yahay dabadeetana ay gabay ku jawaabtay Xuseen Haye waa jirtii wixii SYL
oo ugu xiran istantii wada la soo xaabay markaas ay wax mogdo hal banaan jooga male markaas ay tiri walaala waxa waa Israa'iil ninkii inta ugu xiran tahay beledweyne atago meel kasta atago wala soo dhaweeyay Israa'iil kaas walaalay ahayn walaaleygi wiligeyga dil xiri walaaleygi yaa lay wareegna aan alle watay saldhiga inta aan alle wadaray tiri maxaa dadkan walaalay way tiri sidaas ay magac sidaas ku baxay beledweyne ay tagti habeen idoo banaan bax qabaan markaas ay leeyahay dadkiya dhaayay tahay naagta gaabana idna eedo yay tahay markaas ay leeyahay ay idin maqashay tiri magaciiga makaay waaye minikeyga muusiko Israa'iil leewsi muusiko waxa la gurbaanka la garaacay muusiko waxa la garaacay leewliina mugsoonta kabana aada ka taar ahaato dhixira muusik gurbaan ay leewsiyay beer leewsi makaay garaare celi waxay sii saadaalisay in Soomaalida ay yeelan doonto kumazaariyo iyo boqor waxayna halgamayaashii xilliga u sheegtay in dhibaatada laga bixi doono oo bashbash iyo barwaaqo la heli doono sidoo kale beesha ay ka dhalatay qaarkood ayaa ka soo horjeeday xisbigii leegada waxayna xilliga ka tirisay tix kooban balse tixda hore waxa ku jiray eray ahaa Razanze waxaan weydiiyay Xuseen Sheekh Dalizey Razanze waxa uu yahay iyo xilligii ay tirisay kumasaari Razanze la keena iyo reyno waxa la yiraahdaa boqorka waay Razanze la keena iyo reymadow waa reeyayna rabbi iyo rasuul ay dhacday waa fokay Allah calanka mala qaadan bay markaas dadana waxay tiri xisbigi oo ka soo horjeedi waxay u badnaayeen kholo la yiraahdo liiban bariiso ay u badnaayeen maqsuudtayo markaas ay tiri aniga ii liiba isleeymayni لما اللي بحضرت ليلتي هتاخده الله naxariistay makaay garaare oo soo gaartay sagaashameeyadii waxa ay geeriyootay 1994 waxaana dadkii la kulmay ay ii sheegeen in da'deeda lagu qiyaasi karay 80 jir makaay wax aruur ah ifka uguma aysan tegin dadka mu'allifiinta ah ama abwaaniinta ama kuwa gabya ayaa aalaba waxa u badan rag kuwaasi oo maansada ama gabayada Soomaaliyeed qayb libaax ah kaga jira waana kuwa mar walba halhayskooda ama mahmaahooyinkooda aad ka loo isticmaalo sida mu'allif hore yiri ama abwaan hore yiri iyo wixii lamida iyadoo sidaasi ay jirto ayaa haddana deegaan walba waxa uu leeyahay dad sidaasi oo kale ah kuwa oo lagu ixtiraamo afmaalnimadooda waana kuwa loogu qadarinta badan yahay bulshada dhexdeeda marka laga yimaado culimada diinta sharafta loo yeelo dadkaasi oo bulshada inteeda kale ay dheer yihiin waa laashinimada gabayga guurowga geeraarka iyo wixii soo raaca meelaha ay ku caansan yihiin waxa kamida marka arooska uu jiro oo kale marka colaad ay jirto marka aaran loo baxo iyo eegista mustaqbalka iyo waliba isbarbardhig wixii tagay iyo wixii maanta jooga oo ay ka hadlaan ayaa lagu yaqaanaa dadka abwaaniinta ah ama dadka wax alifaba haddaba degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay degmooyinka dadka shamiinta ah aadka looga qadariyo waxaana jira dad badan oo aad loogu yaqaano aftahanimadoodii hore kuwa oon qaarkood hadda noolayn dadkaasina waxa kamid ah naag aan baxday oo gabayada saddexleyda ah ama kuwa sarbeebta ahna aad ugu dheereey
naagtaana waxaa magaceeda la odhan jiray maymuun biyoy waxaa kale oo ay ahayd maymuun naag la tartanta ragga laashamiinta ah waxayna xiriir dheer la lahayd oo ay u martiyi jirtay dadka ay doonta wada saarnaayeen kuwa oo ah afmaalka haddaba sidee ayay ahayd maymuun biyow xaggay ku noolaan jirtay qaabkaysa ayuu ahaa gabayadeedii waxaa iiga warramay cabdulle colow oo ka mid ah odayaasha degmada jowhar wuxuuna iiga hadlay dhowr qiso uu ka xasuusto laashinimadii maymuun biyoy maymuun biyoy waxay ahayd gabar maanta oo afmaal ah hadduu ilaahay ku diido qolada jiinkana u dhalatay hadduu ilaahay ku diido qalbigeedana murti fara badan ilaahay ku abuuray ayay ahayd waxay ahayd qofta oo jiinka bari iyo galbeed ama bari iyo oraxsan sad u taqaanidba caamku oo aad iyo aad cawadii hataa ru'yo ahaan oo u soo degaayinay ahayd maayna qof oo iska mala yacni ma ahayn qoftaas qof khatar ahay ahayd waxaan ka xasuustaa ninaa intaan ka hor u soo martiyey ayaa iyada u tegi jirtay intaan ka hore isagoo u tegi jirtay geel wax ahaan ma soo siinaynin yacni markii uu ay ninkaasi u martidaba hal geel ahaw soo sii jiray maalnimadeeda ayayna ku soo heli jirtay waqtiga meesha shirka lagu qabay tegaysa kulunka ah kulankaasaa hal geel laga soo siinaya asaag usoo maquuninaya aa gacanta ka saari jiray waa gartay ninkiyaa soo baxayaa maantaba gurigeeda yimid oo isagay u soo martiyey eediyaas u soo martiyey asagay waa gartay waxaa la yidhi maymuuney dhowr halaad waa soo qaadatiya maanta gurigaa lagu yimid maxaa qaba doontaa maxaase bixi doontaa ayaa la yidhi si wanaagsan maymuun waxay tiri too idinka nii taal ma aha aniga halkaa ninkan ii yimid wuxuu galo iyo wuxuu guduba waa ogahay qof hilmaamayso ama xasuusanayno ma ihi sacaan oo weesha wataan siinaa waana kasoo nuqsanahay tiri marka saca hal kaliya u joogay iida lahayd hal xabo hal sacaadaa u jooga oo irmaan ahoo weel wato waa gartay markaa kadib waxay tiri sacaanaan siinaa waana kasoo nuqsanahay tiri waaba dhiibtiyey maymuunaysa ooga soo nuqsaneeyaa la yidhi waxay tiri maymuun biyooytoo idinkanii taal ma aha anigaa ii taalaay sacaan inan siiyo oo weeshiisa wata aan haddana kasoo nuqsanahay tiri yacni si xeeladaysan oo murtiyeysan maayna wax xoog e kama wado waxaa la dhiibi maa xoog lagu soo nuqsanaa kalka horta saas waaye waxaa sidii aniga walaasheegiyey inan baxaan rabaayo ogow ninkii waa la martisoori waxaa loo dili wan waa loo loogi waa loo liwaasi wax kastaa loo sameeyey kadibna waxaa sidhi aniga ina maaragta baxaan rabaayo mayniinay ogaabaa sidhi waxay tidhi walaalkaygiyow haddii bixiysa sacaan irmaanka ahoo weesha wataanku siiye 4 faataxa iigu maray tiri waa gartay 4 faataxow mari waa u dacooy saciiyay markaas tiri aroo qowsaarkii aabe oo sac la jiri waa ikan sacaan u qumi ee ninkaan siiyay tiri